madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha guurtida gudoomiyaha maxkamadda sare madaxweyne ku-xigeenadii hore xusbiyada qaranka saddexda xusbi waxaan idinku salaabayaa iyo barti sharafta kale meesha ka soo qayb gashay waxaan ku salaamayaa salaata islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaynu xusanaa waa 26 Juun 58 sano ka hor aynu xornimadeeni kala soo noqonay Ingiriiska waxaa afar qodob ayaan ku dhow uga dhigayaa waxa weeye odayaashii ugu horreeyay markii Ingiriisku soo tegay diiday inay dhulka u soo degaan markabka dushiisa kula saxeexday inaynu maxkamiyad noqono aad iyo aad baan u hambalyeynaya waa inaynuna xusnaa odayaasha waktigaa kartay inay dhulka ka celiyaan 26 halgankiisuna halkaas ka soo bilaabmay waxaa ku xigay halyeegii Maxamed Cabdillah Xasan oo nin Somaliland ahaa oo taariikhda aynu leenahay isaguna ku sutan oo gumaysigii 22 sano la dagaalamay waxaa ku xigay xaaji Sheekh Bashiir iyo culimadii kale ka dambeysay ayaa iyaduna ka dambeysay waxaa kaloo ka dambeeyay saddexdii xusbi SNL USP iyo NUF iyaguna halgankii ka soo qayb qaadatay waxa weeye halkan dheer baa la soo maray taariikhdana waxaa la rabaa in lagu xuso dadkii dalkan wax u soo taray waxaa ku xigay halgankii weynaa SNM dhiigooda raggii u daadiyey uu ka mid yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iyo wasiirka daaqilka madaxweyne ku-xigeenadii iyo rag badan oo halka fadhiya waana magacooda xusayn waxaana aad iyo aad ugu ducaynayaa kuwii aan soo gaadhin barwaaqadan iyo bashbashkan aynu ku tallaabsanay marka waxa weeye taariikhda waa in la qoraa oo loo baraa jiilka cusub ee soo socda raggii hore waa wada gaboobayaan intaa waxaa ka leeyahay 26 Juun waxaan xusuustaa nin Cabdiqaadir Sooba la yidhaaho oo wasiirka daaqilka ahaan jiray ayaa wuxuu ka sheekeeyey markii aynu xornimadeena xamarkeynay ayuu wuxuu yidhi Talyaaniga 5 nin loo saaray oo isaga iyo joogjo iyo ku jiraan waxay yidhahdeen Somaliland waa dad dhib badan ila ka celiyo yaynala midoobin wuxuu yidhi waxaanu u tagnay Maxamed Xaaji Ibraahiim gaal iyo odayaashii waxaanu dabcanay inaanu eegno oo ay dib isaga noqdaan waxaanu qaadanaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya qaataweynayahay waxaan islaa waxay odhanayaan prime ministerkaanu qaadanaynaa deedna waxaana ha cadooday waxaanu prime ministerkana waa qaadanaynaa qaatayahay waxaanu qaadanaynaa taliyaha ciidanka taliyaha booliiska wasiirka daaqilka wasiirka maaliyadda intaba waa qaadanaynaa weyla qaataweynayahay markii halkaa marayay baanu nidha intaa hadday ogolaadeen shacabka ayaa iga ku kacaya marka waxay noo bixiyeen Fratelli Fesso walaalihii waala marka wixii aynu wadnay waxaynu ka helnay Fratelli Fesso walaalihii waala laakiin hadda ma waalina waa miyir qabnaa wixii aan la soo marayna waxaanu taariikhda ayay gelayaan waxaa kaloo aan isu istaagaya waxa weeye dagaalka ka socda Tukaraq Cabdiweli iyo ina cali weligood dagaal ma yaqaan waxaa la yaab leh reer xamarka waxay yidhaahaan ninkii dhiban waaya geel dhalayana wuu arkaa Muuse Biixi na wuxuu baryayaa nabad Cabdiweli iyo ina calina waxay leeyihiin waa dagaalamanaa marka waa wax la yaab lala yaabo waxa weeye Cabdiweli iyo ina cali dhulbahantana u talayn maayaan laba dagaal bay galeen madaxtooyadu waxay soo weertay Qoriley ina cali wuxuu joogay Burtille waa la hadlayo waxaan ku yidhi kaalay u tacsidee dadkii lagu laayay beebayaasha madaxtooyada ka yimi
وما تعسينا وحنا تعسيه كوي صوت رأي وبتلو فقيه عبد الولي دقال كي لبعض تكرر بيعيش صوت كلام جمعالي ترى جمعالي العيدين وتين وحوي بورتله انت دقال كل علينا هكذا سجود ما انت يلا هو حنوط علينا يا البهانته ووح رياض وروح بقى الوط علينا كل اسبوع ربطايه انا كل سنه قاري عبا كوسو قلنا ابي وانا حتى اسكول هي عبا كوسو قلنا بوكر لسا markaas lagu korniyana waxa loo baahan inaad dagaalka joojinayso marka ismada Puntland waxaan u soo jeedin lahaa sidii ku yaraado Cabdiwali inacami laba sano loogu daro deedna sidaas ay ku ogolaanayaan marka waxaan leeyahay dagaalku isir maaha dagaalku waa dagaal ka dhaxeeya Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Soomaaliya ka dhaxeeya isirna maaha isir lagu dagaalamayana maaha waxa weeye dadku beelay kala degaan qolo waliba xuduudda waa ka tallaabsan tahay annagu haddaanu ka soo jeedno beesha laascaano iyo sool iyo sanaag iyo buuhoodle waxaanu ka midnahay Jamhuuriyadda Soomaaliland ninkii ku hameeya qofkii ku hameeya laascaanood baan imanayaayo caruurta tibula ragga dagaalka abaabulayana waxaan u sheegaynaa waxa weeye 13 sano ayaanu maqlaynay saacadiinta iyo ismo Puntland ka soo jeeda oo reer Soola oo leh waxaan qabsanaynaa laascaanood nasiib darro qaarkood waa dhinteen kuwa kalena waxaan leenahay warintaydaan dhiban kaayoo dalkiini arka oo ibaata oo dadkiina u yimaado oo waa la soo dhaweynaa laakiin midda dhacasa hadda waxa weeye ninkii reer Sool iyo Sanaag iyo Buuhoodle oo dagaalka ka qayb gala waxa weeye inuu jinsiyadii Soomaaliland lumiyay oo ku soo noqonay carab baate halka iyo Garowe ayuu joogaya marka waxaan leeyahay dagaal cilmi rabto Soomaaliland uma soo jeedo duufaano iyo dalkeeda inay dhisato ayay ka shaqeynaysaa haddaad dagaal ciil u qabtaan waxaad ka helaysaan kaalkacyo iyo mudug baad ka helaysaan maad xagga isaga sii jeesataan marka waxaan ku soo dhaweynayaa waqti dambe weeye madaxweyne waxa weeye dadkii dhintay dadka u soo dagaalamay ilaa xorriyadii keenay in taariikhda lagu qoro dadka la kala saaro nin waliba intuu iska tago oo xuduudda ka tallaabo ama xamar tago ama Puntland tago beri intuu soo noqdo la soo galbiyo taa u dulqaadan mayno waxa weeye waa in lagu qoraa buugga madow oo jinsiyadiisa la geliyaa oo aan lagu soo dhaweyn Soomaaliya inuu dib ugu soo noqdo hadduu qarankan dambi ka galay aad iyo aad baan u salaamayaa waa waqti dambe waxaan ku salaamayaa midnimada Soomaaliya waa muqaddas waxa isku keenaya waa Soomaaliland calankaas isku keenaya iyo dastuurkaas isku keenaya waxay nahay wada Soomaaliland dalka ma kala lihin midnimada iyo wada jirka beelaha lagu soo wadaysto dagaalada yaryar ee gudaheena hal dhamaystiro dagaal waxba tari maayo ninkii dagaal rabo waa la ku soo socdaa diyaar garow assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh